hilowle mana maqlaysaa hilowle waa maqlayaa aad iyo aad. asalaamu calaykum kusoo dhawo brother. وعليكم السلام. horta fiish waa mahadsan yahay madaxweynaha uu isku sharaxayo su-aashaan weydiinaya waxa ay tahay beeshuu kasoo jeeda ama deegaanku uu micnaha Soomaaliya degaa marka uu isku sharaxayo qofka madaxweyne ahaan micnaha su-aashaada han si yara ballaadhiya aan kaleer ka dhigane ma qabiilkaad weydiinaysaa mise waxaad leedahay musharax Soomaaliyeed baan ordiyo qurbo hadduu yahay ma waxaad shaaca ka qaadaysaa qabiilka uu qofku yahay inaad caddayso marka exactly beeshuu kasoo jeeda ama deegaanka kasoo jeeda abti hadda ma raalli naga haw taa som TV haddaanu nahay annagu halkan uma fadhino inaanu fijino ama qabiil meeshan ku caddayno ama qofka uu yahay adiga ma caddayn karno dad badan baan caddayn karin marka ase Soomaalinimo ase islaamnimo ma ku qaadan kartaa sida aynu isku hor fadhino maanta thank you waad ku mahadsantahay Allah ya khaliig runtii taas waxay tahay qofka maskaxdiisa waxa ku soo dhici karaya aniga shakhsi ahaan marka qofka lagu weydiiyo marxaladda ay maanta Soomaali kala joogto waynu garan karnaa qofka imaamka ee masaajidka taagan qofka macallinka qofka dhakhtarka haddii aynu qof walba professionalkiisa u dayno waxbayna tari lahayd laakiin qabiilka haddaynu ku horreysiino ninkii quraanka dhigayay aad tira horta waa ayo waxay noqonaysaa negative ka soo baxaya qabiilkiisa baad raadsanaysay quraankiisa ma raadsanayn marka waxaan jeclay raali naga ahaw haddii aan su-aashaas si xun kaaga jawaabay laakiin waxa fiican inaynu ku dayno adiga shakhsi ahaan haddii aad doonayso ama sii barato waa laga yaabaa inaad soo hesho haddii ilaahaydhaa ood raadiso website-kiisa gasho ama personal ahaan aad isaga raadiso marka qofka kale ee ku xiga halow mana maqlaysaa walaal waay soo dhow maam waxaan su-aalayaa hadalkaas iyada si fiican baa u wadaan laakiin nin baa yaranaha waxaa ninku waa qabiilma qabiilo meesha ma yaalo waxa weeye sidaa u wadaan u wada soomaalimoya qabiil ayaa lasoo hadalqaaday insha allah waad ku mahadsantahay allah yakhaliik way ku soo xidhay faadumo waxay tiri nin baa khaldamay oo qabiil dadka weydiiyey marka si fiican baa tiraahday sidaana u wada bay tiri iyaduna way soo ducaysay hawada waxaanu ka haysanaa 3 daqiiqo musharax waa cabdiqaadir xaashi cali fish oo madaxweyne u ordayay insha allah haddii la haydhaa waxaanu ku siinaynaa daqiiqadiiyo barinta hawada ka hadhay maxaad jeceshay dadka inaad la hadasho website-kaaga iyo taageere iyo talaba wixii ardaya ama dadka qaar aad halkan kala hadlaysaa waxaad haysataa 1 minute 60 second waxaan ku baaqaya horta aad iyo aad u mahadcelinaya bacdiina rsiyaalo tv-ga Soomaali TV fursadan qaaliga aad la siiseen culummada Soomaaliyeed dhammaan aa wada siiseen waayo dad badan aan aqoon baa message-kayga gaaray waxaan rajeynaya waxa weeye anigana aan maqlay dad badan aan hawada ka maqlay halgankan anagu kaliya ma kulligeen baan wana wada haysta war meesha laga kaco waxa alla wixii la qaban karaa la qabto yaan la yareysanin yaan la quusanin rajada ilaahay raxmadda ilaahay way furan tahay rajada ilaahay lagama quusto waxaan leeyahay waxa weeye ummadda Soomaaliyeed website-kayga waa www.mrfishforpresident.com waxay contribution anagu waxaan helno waxaan ku bixinayna waa qarashkeena luush xaaraan buu naga yahay inuu baarlamaan siino haddii xukunka ilaahay noo garto waan helaynaa ayagoo inoo caqab codka ilaahay afkooda ka keenaya oo gacantada ka keenaya taasaan aaminsanahay taasaan haweeney maalin ku tukanaa aan ku tulaysanaa dalkii dadka rabna inaan ku badbaadino luush kursi lagu tagay ummad Soomaali lagu dhaqi maayo wadankana ku tegi maayo dadkana nabad kala heli maayaan marka taas waa naga xaaraamaysan tahay laakiin waxaan rabnaa wax alla waxay saboortaa kii $5 bixin lahaa kii 20 bixin lahaa kii 100 bixin lahaa website-ku geli kara visa card mastercard paypal waa lagu bixin karaa min fadlan do your contribution insha allah السلام عليكم ورحمة الله waad mahadsantahay hilowle mana maqlaysaa hilowle waa maqlayaa aad iyo aad. asalaamu calaykum kusoo dhawo brother وعليكم السلام. horta fiish waa mahadsan yahay madaxweynaha uu isku sharaxayo su-aashaan weydiinaya waxa ay tahay beeshuu kasoo jeeda ama deegaanku uu micnaha Soomaaliya degaa marka uu isku sharaxayo qofka madaxweyne ahaan micnaha su-aashaada han si yara ballaadhiya aan kaleer ka dhigane ma qabiilkaad weydiinaysaa mise waxaad leedahay musharax Soomaaliyeed baan ordiyo qurbo hadduu yahay ma waxaad shaaca ka qaadaysaa qabiilka uu qofku yahay inaad caddayso marka exactly beeshuu kasoo jeeda ama deegaanka kasoo jeeda abti hadda ma raalli naga haw taa som TV haddaanu nahay annagu halkan uma fadhino inaanu fijino ama qabiil meeshan ku caddayno ama qofka uu yahay adiga ma caddayn karno dad badan baan caddayn karin marka ase Soomaalinimo ase islaamnimo ma ku qaadan kartaa sida aynu isku hor fadhino maanta thank you waad ku mahadsantahay allah yakhaliik runtii taas waxay tahay
qofka maskaxdiisa waxa ku soo dhici karaya aniga shakhsi ahaan marka qofka lagu weydiiyo marxaladda ay maanta Soomaali kala joogto waynu garan karnaa qofka imaamka ee masaajidka taagan qofka macallinka qofka dhakhtarka haddii aynu qof walba professionalkiisa u dayno waxbayna tari lahayd laakiin qabiilka haddaynu ku horreysiino ninkii quraanka dhigayay aad tira horta waa ayo waxay noqonaysaa negative ka soo baxaya qabiilkiisa baad raadsanaysay quraankiisa ma raadsanayn marka waxaan jeclay raali naga ahaw haddii aan su'aashaas si xun kaaga jawaabay laakiin waxa fiican inaynu ku dayno adiga shakhsi ahaan haddii aad doonayso ama sii barato waa laga yaabaa inaad soo hesho haddii ilahayda ood raadiso website-kiisa gasho ama personal ahaan aad isaga raadiso marka qofka kale ku xiga halow mana maqlaysaa walaal waay soo dhow maam waxaan su'aalayaa hadalkaas ayada si fiican baa u wadaan laakiin nin baa yaranaha waxaa ninku waa qabiilma qabiilo meesha ma yaalo waxa weeye sidaa u wadaan u wada soomaalimoya qabiil ayaa lasoo hadalqaaday insha allah waad ku mahadsantaa allah yakhaliik way ku soo xidhay faadumo waxay tiri nin baa khaldamay oo qabiil dadka weydiiyey marka si fiican baa tiraahday sidaana u wadaba ay tiri iyaduna way soo ducaysay hawada waxaanu ka haysanaa 3 daqiiqo musharax waa cabdiqaadir xaashi cali fish oo madaxweyne u ordayay insha allah haddii la haydhaa waxaanu ku siinaynaa daqiiqadiiyo barinta hawada ka hadhay maxaad jeceshay dadka inaad la hadasho website-kaaga iyo taageere iyo talaba wixii ardaya ama dadka qaar aad halkan kala hadlaysaa waxaad haysataa 1 minute 60 second waxaan ku baaqaya horta aad iyo aad u mahadcelinaya bacdiina rsiyaalo tv-ga Soomaali TV fursadan qaaliga aad siiseen culummada Soomaaliyeed dhammaan wada siiseen waa dad badan aan aqoon baa message gaaray waxaan rajaynayaa waxa weeye anigana aan maqlay dad badan hawada ka maqlay halkan anagu kaliya kulligeen baan wada haysta war meesha laga kaco waxa la wixii la qaban karaa la qabto yaan la yareysanin yaan la quusanin rajada Ilaahay raxmadda Ilaahay way furan tahay rajada Ilaahay lagama quusto waxaan leeyahay waxa weeye ummada Soomaaliyeed website-kiga waa www.mrfishforpresident.com waxay contribution anagu waxaan helno waxaan ku bixinayna waa qarashkeena luush xaraan buu naga yahay baarlamaan siino haddii xukunka Ilaahay noo garto waan helaynaa ayagoo inoo caqab codka Ilaahay afkooda ka keenay oo gacantada ka keenay taasaan aaminsanahay taasaan haweeney maalin ku tukanaa aan ku tirsanaa dalkii dadka rabeen aan ku badbaadino luush kursi lagu tagay ummad Soomaali lagu dhaqi maayo wadankana ku tagi maayo dadkana nabad ka heli maayaan marka taas waa naga xaraamaysan tahay laakiin waxaan rabnaa wax alla waxay saboorta kii $5 bixin lahaa kii $20 bixin lahaa kii $100 bixin lahaa website-ku geli kara Visa card Mastercard PayPal waa lagu bixin karaa min fadlan do your contribution insha allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.